waxaan u hadlayaa gaadiidka loo yaqaan mootobajaajka oo magaalada Muqdisho gaadiidka mara 90% ka gaadiidkaas oo dadka Muqdisho jooga iyo gobolada Soomaaliya ay faa'iido weyn ku qabaan gaar ahaan dawladdu ay ku qabto faa'iido weyn waxaan ka hadlayaa dhibkan haya wuxuu yahay annagu gaadiidkan ka mid nahay waxaan dakhli soo gelinaa dadka ganacsatada iyo dadka rakaabka iyo dhammaan ilaha dhaqaalaha ayaan dhaqaale soo gelinaa for example dhaqaaluhu wuxuu ka bilowdaa aan soo gelinaa dalka markabka soo qaadaya Soomaaliya lacagta ka qaadata waxaan ku xoojinaa gaariga soo qaadaya dekada lacag baan la ka qaadaa waxaan ku xoojinaa canshuurta oo aad iyo aad u fara badan lacag baan la ka qaadaa fiisha taraafikaan tagna lacag baan la ka qaadaa laysan baa lacagna la ka qaadaa buug baan la ka qaadaa intaas waxaa nagu qabo waa ilaa iyo dekada magaalada markaan soo galno shidaalka la qaadanayo annaga qaadana isbayr baartiga la qaadanayo annaga qaadana lugaha la qaadanayo annaga qaadana lamaajada baabuurta mootooyinka lagu dhaqayo annaga ayaana la ku dhaqaa inta shaxaadka aan u bixino iyo inta aan shaqaysano magaalada Muqdisho 80% ayaan dalka u shidnaa waxaan u banaan baxaynaa dhammaan waxaana la ka xiray noolaha bini'aadanka waxa uu ku noolaado wadadii ayaana la ka xiray lacagta wadada lagu sameeyay annaga la baxna one day waxaana la ka qaadaa $1 askarigu xabad buu nagu ridaa mid kale xabad buu nagu ridaa maamulkana waxay soo saareen inta la maray in la ka celiyo ayadoo lacag meel aan aqoon weynay $4,000 baan la ka siiyaa mootadaas iyo lacag ku dhadhow baan la ka siiyaa dawladda naga canshuurta waxayna noo diidaan wadadii inaan marno wadadana annaga dhisanay ninka askariga wadada ma dhisin wasiirkuna ma dhisin madaxweynuhu ma dhisin gudoomiyaha gobolka ma dhisin lacagteeda lagu dhisaa shacab baan hay lacagteeda lagu dhisaa lacagteeda nala ku dilaa nala ku dhibaateeyaa nala ku canshuura maanta kale waxa uu magaala 4 in la dilay ilaa haddeertaan qof baa ilaa hadda nin bajaajla oo la dilay oo laga hadlay lama arko waan ka hooseynaa dadka annagaana u shaqayna annaga lacagta soo gelina annaga meel geyna askarigu intuu ku celiyo 6 saac ku leeyahay qaab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحمد عبد النور وهلا قدي بجاج كسعودة وحن كعبنا إذا ما دام مجال اللي وصل دادي أو ودول بنجح حرية جديد والبوالة في الصحية يروين أنا وحاب بجاج ليه داتي نقدنا اللي أنا بيش وحنا قلق هذا على بجاج سدادي $8 بيش نقلق هذا على مجالنا وأنا قلق حرية بجاج مش شقي سكرت اللي ويران بجاج موتوينك حمر كشقينا وحدين لابي 8 كنا موت كله فادي وري $8 كله في ماقا بيش نقلق هذا سرت كل ماقا نقريسا 2 مليون انت $100 نقريسا مشاركة دولة بروفيت أنا قدنا مركز وحنا اللي ودويك وحنا اللي وأنا قال حري ودويك وأنا قال حري ساكت وحنا قال داو عيال قال داو عيال هذا دي أكو شو بينا لا أنا قال دي مركز عنك وحنا كعسرنا رئيس الوزراء وحنا مدحوينا كعسرنا إن ودويك نول فرق وحقين نول وسيد باورتك نول رقم يا عمال نول رقمر أنا عبد النجيب سعيد على عبنينا إن هدانا أنا موتولي وعوشقينا هويين المو عرور والدين معل وددي دلينيرو انت تهريبك انت عادي لهان وعيدنا معي waa ka joogsanay inta yareedo shaqada aan ku soo aruurnayna waxaan nagala saaray mucaarad oo intii lacagta nagala qaata hadana nagala xirto wadada oo nala sii oo nagula amar taagleeyo oo nala liif garaaco xuquuqdan nagula tunto waxaan la cuno taas ka soo horjeedna waxaan wadooyinka dhan oo nagala xirto wadooyinka waxaa naga xirtay nabad sugidda iyo booliska iyo taraafikada minishiibiyada waxaa la soo kulmay magaalada oo buuq yar ka taagan mootooyinka iyo jiidkii xiran waxaan xirtay shacabka oo dhalinyarada mootooyinka wado oo darwaliinta marka waxa ay waa dawladdu waxa laga codsanayaa waa inay dhalinyaradan tahriib iyo u furin inay qori qaataan inay dhacaan waa in jiidkooda loo furaa shacab Soomaaliyeed waa wiilal yar 20 jir ilaa 28 jir hadda la tumay jiidka ka wareysay marka waxa ka codsanaya dawladda in dhibaatadan ay ka xaliyaan shacabka Soomaaliyeed ama Britain ay Yemen iyo waxay aad doonaan badada ay ku dhiman doonaan
aniga bajaajka miyi laakiin dadka bajaajka raaca ayaan ahay waana taageersanahay dhallinyarada Soomaaliyeed shacabkeena weeye waa indhihii Soomaali waa in jidadka loo furaa intay beri qori qaadaan bismillaahi raxmaani raxiim haddaan nahay bajaajleyda iyo dadka darawaliinta ah iyo dadka bajaajka ku xamaasho xuquuqdayni waa lagu tuntay dawladda waxaan u sheegaynaa intay nabad raadinayso iyo inay qalad kala gelin waddooyinkii la xiray iyo wixii waana saameeyeen annaga waxaan nahay mootooyinka xamar jooga 12 kun aan ka badan nahay calaamoota waxay biishaa 10 qoys ka kooban 10 qofood calaamoota waxa lagu bilaa qoys ka kooban ugu yaraan 5 qofood 6 qofood 10 qofood marka waxaan leenahay dawladdu cashuurta ugu badan annaga ay naga soo xareysaa awalan labadii waddo ugu muhiimsan airportka iyo madaxtooyada loo diiday haddana ma wadadii KBB iyo talaaxiina lagu haystaa ma doonayno mana yeelayno waana mana yeelayno haddaan nahay dawladda anigu odayaasha deegaanka degan Makala Mukarrama gaar ahaan lambar 4 saaka waxaan aaday shaqadii fursad waxaan u waayay aan shaqadan ku tago maxaa yeelay biilka aan raacay jirno bajaajka iyo biilka magaranaysa caasiyaasha hoomeyga oo loo diiday waddooyinkii maraan dhalinyarada runtii ahaantii ka shaqaysa magaalada ee uu ka baajiyey farmaajo codka shacabkana siisay lambar 1 waxaa ka dhalinyarada 12 kun ah ee magaranaysa bajaajyada wata oo uu ka baajiyey tarhiibtii iyo baddii iyo dhulkii ugu cararayeen oo naftooda ku biimeynayeen in maanta lagu qasbo dhalinyarada inay waddankooda nacaan xukuumadda ay doorteen farmaajo ay nacaan oo ay tarhiib aadaan oo ay qori qaataan oo ay nabadda ay ka shaqayn waayaan waa nasiib darro waxaan marka dhibaato ah in dil loo geysto in laga qaato $1 $10 oo magaranaysaa aysan awoodin in magaranaysaa laga yaabaa maalinkii $12 inay raadaan eedaa gelinka dambe kadibna ay bil raadiyaan markay jaarkas ka baxshaan dhalinyaradaas oo ay ku farxeen farmaajo doorteenna in maanta marka lagu qasbo inay tarhiibaan oo ay qoryo qaataan 12 kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo amniga ku waayaan magaalada ay ku noolaan magaranaysaa deegaankooda ah waa nasiib darro waxaan ka codsanayaa xukuumadda ugu horeeya farmaajo uu ku xigay wasaaraha Khayre inay arrintan fiiro gaar u yeeshaan dhibaatada ka shaqeynaya mas'uuliyiinta ee shacabka iska horkeenaya xukuumadda inay talaabo ka qaadaan canshuurta ay soo xareeyaan qiyaastii markii la qiyaaso waa 23 milyan iyo $750 markaan qiyaasna weeye lacagtaas waa miisaaniyadda dowladda soo xaroonaysa mushaaraadka iskaga bixinaysa mashaariicda ah dhalinyarada waddooyinka in loo furo in laga qabto ka mas-uuliyiinta si qaldan u shaqaynaya iska horkeenaya xukuumadda iyo shacabka middaas ayaa masajaan u diraya dowladda magacayga waxaa la yidhahdaa aadan cabdi xasan oo ku magac dheer aadan cabdi fashion sida dadka ay yaqaanaan waxaa ka mid ahay mootooleeda ka shaqaysta magaalada muqdisho waxaa lagu qabaa waayaha dhib aad u fara badan waddooyinka dhagaxyaa ku go'anaayeen qaarkii furraan waxaa lalahay mootooyinka ma marayaan aa lalahay markaasaa waxaa dhacdan maxaa jira mootada keliya loolo heystaa may mooto bajaaj marayso waxaa dhibaato weyna oo dhib weyna maanta oo aan ka cabanaynaa dayuus baro oo waddanka ka maqnaay oo jira Yurub iyo meel daran Ingiriiska maanta inuu imaaday oo gaari raaxo uu wato oo calulwan yahay oo gaarigana oo wato oo isagana loo ogolaado oo anagana loola diido anaga mootooyinka maamooyina ka biilna xaaskana ka biilna carruurtana ka biilna iskuulaadana ka dhiibnaa taas ma yeeleyno maanta ilaa ishal waa shaqalaanahay waxa ku shaqalaanahay ma garanayno waan ila diiday cadaalad maaha anagoo waddanka u dhalanay oo Soomaaliya in la dhaho laamiga ma maraysin meesha ku taal anaga ma arkin ilaa hadda anaga taas ma yeeleyno ilaa ay hadeertaan waa fahmi la'aanahay jawirkaas maxaa khaldoon nagu haystaa waa su'aal waa weydiiyey maxaan naga rabaa maxaa hadeertaan oo bartilmaameedoo anaga keliya noo haystaa ma aha mootooleey ma marayso meeshaan asbaabtay ku marayni maxay tahay waxay tahay hooyadaa waa laabane waxaasoo kala jiro awala kuudii horeba dhibaato kale fara badan taagneed waddadoo xeerna la lahaysaan waay kan waay maraysid hanjabaad haddana waxaa dhibaato weyn maanta oo aad uga cabanaynaa oo aan ka kacsannahay oo aanan yeelaynin oo aan u dulqaadanaynin waddada oo aanan u dulqaadanaynin Somali National TV.
Somali national TV. Perché ho